السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا كنال كيغا وانيغا نسره سيديتنا أصحابتي إذا شرفت له وحارجينا يا إنا في عنتهين كسر دوادا كنال كيغا مركوبات إي مرلبات إي مرسدحات ما أنت وحان روا إنا ذين لقيب سنو إن ألابتان أو لوغو مقع بحيي بومبولوني أما كرابفين وحاوايا بر آدي معان بدن أو هدي لراونا معان لوغو عني كرو هدي لراونا يعني ويحي أو ردنانا لوغو درس كرو marka maanta waxaa idin tusinaynaa anaka iyadoo macaan lagu cunaayo kareemka keyga loogu talagalay qayb ka mid ka shubnay marka waxaa rajeynayaa fiidiyoganeeti inaa nala daawa doontiin ka heli doontiin insha allah tacaala haddii aan kanaalkeyga ka qorneyni iska qora fiidiyoga haddii aan ka heshana like igu dhaafa ilaahay idinkis marka hadda waxaan u gudbaynaa alaabteeni suubinteeda waa arkaysin sidee aad iyo aad ugu fududahay marka waxaa rajeynayaa inaa ka heli doontiin caruurtiina siisa doontiin idinkana la cuni doontiin insha allah tacaala inta waxaa noogu diyaarsan alaabteeni oo dhan waxaa kusoo diyaariyay ingredientyaashii oo dhan marka ingredientigoo dhammaystiran hoos waa idinkugu soo qorayaa box informationka marka waxaan idin tusinayaa alaabta sidee aad kugu fududahay waxaa waaye bur biyo caano ukun leebita fresh waxaa ku bedeli kartiin midda oo powderka ah subaga oo maxaa yiraahdaa butterka cusbo iyo sokor marka hadda waxaan soo qaadanayaa burkeeni waxaan ku shubanayaa maxaa la yiraahdaa balanitaariyaha macnaha weelkaaniiti oo mixerka waxaan ku dareynaa cusbadii hadda waxaan ku dareynaa sokortii waxa dhan way yar yihiin sida arkaysiin macaan ama salaad wixii loogu talagalay oo yacni aad ku cuni kartaan waxaa lagu daraa hadirtaan subagii waxa waaye butterka haddii aad rabto subag Soomaaliya ku bedeli kartaa hal xabo ukun waaye oo yani isqabto lagu daraaya marka wax kale nooma harsana yani mashiinkii la daaro oo yani laga shaqaysiiyo sida arkaysaan alaabtan waxaa ila diyaarinaya maxamed ana waxaa ahay maxaa la yiraahdaa cameramanka ka ahay asagana diyaarinaya maanta rootigan ama yani bombolonkaniti marka waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontiin fiidiyogana like nagu dhaafi doontiin insha allah tacaala alaabta sidaan marka yani loo daaro waxay ku shaqeynaysaa marka hore tartiib u daarayna kabacdi tartiib yani waan xoojinaynaa macnaha si saaid sidoo ugu qasanto kabacdi hadda waxaan isku diyaarinaynaa biyaha iyo waxaan ku darnay caanaha iyo biyaha isku darnay leebitada freshka ahaa ku darnay hadda leebitada xoogaa yar ku dhalaalinaynaa caanaha si yani hadhowtii qasmada ay ugu fududaato marka haddii aad waqti haysato xataa waa iska dii kartaa leebitada kaligeeda iska dhalaalaysa laakiin xoogaa inta waxaa lagu jajabinayaa fargeetada si yani ay ugu dhalaasho yani hawsha waqtiga la xoojinayaa maxaa yeelay alaabtan suubitaankeeda xoogaa yar waxay u baahan tahay waqti maahine way fududahay laakiin waqti u baahan tahay marka sidaan markii la iskugu waxeeyo caanaha iyo biyaha iyo leebitada markii sidan oo iskugu qasan maxamed bacdi waxaa lagu darayaa burkii iyo subagii iyo sokortii iyo wixii dhan oo hadda mashiinka lagu shubo oo lagu daare alabtii watna waxay isku bedeshaa cara camal markaysaan macnaha subaga batarka iyo sokorta iyo burka markii la isku qaso sida cara camal la isku bedelaysa xoogaa waxay noqonaysaa cara qoyan oo kaleente marka meeshaan waxaan daminaynaa mashiinka tartiib marka waa kaasa waxaa lagu darayaa caanaha iyo sokortii leebitadii caanaha biyaha iyo leebitadii oo la isku soo daraa macnaha lagu darayaa وكاسا هدرتان ودارينا ماشينكا عجينكا sidaan waxaa ku wadinaa muddo 5 ilaa 7 daqiiqo intuu dhaxayso marka markoo si fiican u soo lafaaqmo aanu balan haddii ilaahay raalki noqdo insha allah waa kana cajiinkeeni oo si fiican lagu soo shaqeeyo markaan waxaa ka soo wareegsatay 7 daqiiqo camal ka soo wareegsatay haddii aan mashiin haysanin oo kaleente adiga gacanta ku qasan kartaa laakiin haddii aad gacanta ku qasaysid cajiinka waxaa laga rabaa si fiican inaad ugu shaqeyso muddo 10 ilaa 15 daqiiqo macnaha aad gacanta ku qastaa loo baahan yahay
marka waa kana cajiinkii marka oo 7 daqiiqo noo soo qasmay waxaan yani soo saarnay miiska oo qurub badan lagu shuba maxaa yeelay cajiinka xoogaa yar waa jilcan yahay saastay tahaani dhegdheg ma ahin marka وكسا حوغا waa la isku geenayaa kabacdi waan sisiinina insha Allah idinka waa arkeysiin bo markaysan hol mu baahno hadii mashiin haysato way ku fududahay laakiin hadii aadan haysanin gacantaada ku qasa kartaa maxaa yeelay iska fududahay xoogaa waqti yar u baahan tahay maahine way ku fududaanaysaa insha Allah taala kulay yani hadda ku farxaysaa marka ciyaalka ku cunayaan ama adiga naftirkaaga ku quraacsan sidoo kaleente waa alaab aad iyo aad u fudud wakana cajiinkii waa soo qamiirine waxaan soo subnaa 1 saac iyo 10 camal marka oo qamiira oo soo laabane xoogaa yar waa laga shaqeynayaa macnaha waa la gidgidinayaa waa la isku geeginayaa waa la isku fidinayaa waa la ku laalaabayaa kabacdi wuxuu sugayaa haddana 10 daqiiqo camal maxaa yeelay bomboloolahaniti ama craftinkan markii la suubinayo wuxuu u baahan yahay in la koolkooliyo oo la fidiyo oo la laalaabo oo la nasisiyo oo haddana sidoo kale inta la yeelo hadirtan sidaana yeelnay yani waa sugnay 10 daqiiqo ka bacdi haddana waa u soo laabanay waa arkaysaan xoogaa yar haddana waa la fidinayaa way fududahay macnaha wuxuu ku baahan yahay adigoo 2 saac ilaa 3 saacadood haysata camal inaa alaabtan suubiso hadda sidaana la yeelay waa la dadayaa haddana 5 daqiiqo loo soo sugayaa وانا كنا هدرتانيتي 5 دقيقة سو سنسيسيننا alaabteeni oo soo nasatay haddana waa markii ugu dambeysay stepkaniti oo yani nasashada waa u soo dhamaatay hadirtaan waxa bilaaweynaa jarjarka marka horeysa sidaan u jarjareynaa fafiliq waaweyn laga dhigayaa kabacdi waa la miisaamayaa runaantii anaga waxa ka dhignay xabadkii waxa ka dhiganaa 30 grami waxa waaye 30 gram camal yani waxa waaye 25 ilaa 30 inta u dhaxaysa camal laga dhigayaa si xoogaa yar oo ama isku mid oo ka ahaado ama isku ag dhawaado markaysan marka waxa waaye 23 ilaa 30 gram xabadkiiba intaas u dhaxeeyo waaye kabacdi markii cajiinkii la soo kuskusay macnaha oo la soo garaamiyo la soo miisaamay hadda wax kale nooma harsano waxa noo harsano kaliya in la kuskuso oo la diyaariyo oo la qamiiriyo sidaan ala yeelaya waa arkaysaan haddii aad rabtiin waxaa ka dhigi kartiin waaweyn runaantii anaga waxaa ka dhigi jirnay xataa ilaa 90 yani 90 gram waxa waaye 90 gram ilaa 100 laakiin wuxuu ku soo baxayaa saaid waaweyn markaan waxaa go'aansanay inaan yar iska dhigano yani alaab yar oo iska fudfudo yani sida loo cunayo ay fududahay inaan ka dhigan aad jeclaysane laakiin haddii adiga rabto waxaa ka dhigi kartaa waaweyn miisaanka adiga aad rabto aad ka dhigi kartaa marka waxa waaye sida adiga rabto waaye marka waa kana markii baalinaha la soo yani la soo diyaariyo kuskus laga soo dhigay waa soo nasisiinayna adi waxa laga sugayaa intee nus saac ilaa 1 saac inta u dhaxayso ala soo qamiirinaya laakiin marka hore chef Maxamed wuxuu yiri cajiinka markii la kuskuso intii la nasinin ka hor waxa waaye in xoogaa yar la dhaqsiiyo oo la nasisiiyo oo aaryada laga saaro waayo marka anaga yaa nahay yani contradiction ma suubinayna Soomaha marka waxa waaye in yani last call la dhageysto waa kana cajiinkii waxa ka soo wareegsatay aad 1 saac ilaa 1 saac iyo 10 camal ka soo wareegsatay waa arkaysaan xoogaa yar uu soo fuuray saliid waa la cabire gramataas inuu ahaado waaye marka saliidda marka ay kulaato dabka waa la gaabinayaa marka hore dabka uu ku dheereysnaanayaan yani saliidda markay kuleel sayid ku noqoto ka bacdi waa gaabinaysaa burka si tartiib inuu karsamo macnaha maahin yani rootigiina oo aad saliidda karkaraysa lagu shubo yani ku sii karkarta maahin marka saliidda temperaturada loogu talagalay waa inaad ka dhigtaa kabacdina xoogaa gaabisa minimum ka dhigtaa dabka si yani xoogaa uga soo koro marka sida arkaysaan runaantii aad u fududahay hawsha marka sidaana yeelinaa sidaana loo dubayaa saliidina dansinta loo malay markiisino
مدة سنوي دارنتها لكن ولا جابيه يعني مش قدام بيسالكيه si يعني بركة أو بوبسين ساستي تانو وكرسم ويا معناه روتي برا كدلدلو لكن بر ماهين وروتي عمل وحلو تلقلي إن وحلها دونت كعمل واي لكن حغير وكدبني هاي كم حواي كرابفن marka waa ka samarkaysan gaduudka sida loogu talagalo ka noqonaya dabka makaabooba maxay la hadii dabka dheereyso kalente yani mid wuu ka gubanaya mid xoogaa yar wuu cadaanaya wuu soo bogsiismaya ama dhaxda ceerin oo kaya kor ka gaduudanaya hadii laakiin dabka uu gaabiso minimum uu geeso wuu ku gaduudanaya isla markaasina dhaxda wuu ka bislaanaya marka ani waxa idinku la talinaya hadii wax aad u weysin wiligiin saliid oo aad iyo aad u karkaraysa isticmaalina dabka mar walba loo gaabiya marka saliidda temperaturada loogu talagalay la gaaro marka arkaysan yani halkii dhinac wuxuu ka karsama 1 daqiiqo iyo bar camal marka burka dhanba waxa waaye 3 daqiiqo ma dhamo yani intuu oo karsamaayo marka sidaan markii la yeelo waa ka soo bixinayna saxan saaranayna marka wareeg kale inta gelinayna sidaan hawsha dhanba lagu wadaayaa wareer ku daay maqaana waa kana wareeg labaad فاكنا بالابتين مركزان سيدانا كسو بحدا قرها كاميرا حتى سيفي عن لوغما جيدا ما هنا ما شاء الله تبارك الله إلهي هنو دابي ويا قرها ويفقدها وينا معان بدنتهاي مركا بروفي هدي بروفيسين إلى سوسعتسية أنا waxay iga helisiin meel walbo oo social media hoos idinku ku soo qoraya markan sida arkaysaan qaybtan waxa go'aansana oo idinku tusayna waxa ku buuxinuna creamka oo loogu talagalay keega oo doorshada loogu talagalay idinka hadii aad rabtiin waxa marsan kartiin oo kaleente chocolate nutellada oo kaleente ama macnaha butterka oo kaleente ina kala jeextiin marsan kartiin hadii aad butter jeceshiin hadii kaleente creamka oo chocolate marsan kartiin ama simplishamente waxa marsan kartiin maxaa la yani dhaxda ka gashi kartiin toonado kale ama insalaatado kaleente yani wixii markaas adiga aad jeceshaa waxa waaye laba nooc loo isticmaali karaaya alaabta inay runaantii marka way fududahay sida arkaysan waa kaasa anaga dhamaan ma ka dhigin al chocolate ala kareem ma ka wada dhigin dhamaan macna kareen ma wada gelinin maxaa yeelay ciyaalkeena ma cunaan kareenka waxay jecel yihiin shokolatada ama yani marmalaatada kaleente laakiin qaybtan idinku tusinayna kareenka wuu noo yaalay marka sidaas darteed qaybtaas kareen idinka ka dhigin inta badan waa kana waxna ma gelinin subaxdii haduu ilaahay raali ka noqdo ama galabtii waqtiga loo baahdo macnaha waxa laga dhigayaa sida loo rabo oo loogu jecel yahay marka insha Allah taala waxa rajeenayaa fiidiyoganeetina ka hesheen qayr caafimaadaas koognahay waa inuu fiidiyoga dambe hadii aad ka hesheen asxaabteeda qaaliga like igu dhaafa commentigina wixii markaas aad jeceshiin nooga soo qora kanaalka hadii aan ka qornayn iska soo qora insha Allah taala qayr caafimaadaas koognahay anigii maxamed waxa idin soo direena salaan oo kal iyo laabta ka soo gaada insha Allah taala assalaamu calaykum